halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda ee Soomaalida. Qodobada aad qaybtan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dalka Turkiga waxaa kulamo ku yeelanaya madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasimihii awoodda badnaa ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno siyaasiyiin oo nabad iyo nolol ka tirsan. kulamadaasi oo laga helayo xogo sira iyo sidoo kale ujeedka ay kulamadaasi ku yeelanayaan hogaankii hore ee dalka iyo sidoo kale xogo sira oo kulamadaasi ka soo baxayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doona. qodobada kalena waxaa ka mid ah Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hadda haya xilka NISA iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isku qabsaday cidda loo magacaabayo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo dhawaan uu ka geeriyoodo taliyihii qaybtaasi Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole iyagoo isku haysta cidda loo magacaabayo. Xamse waxa uu keenay nin ka soo jeeda ama ku hayba beeshiisa xilli Mahad Salaad uu ku doodayo in xilkaasi loo magacaabo booskii uu ka geeriyooday taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sidoo kalena beeshii kursigaasi ku fadhisay ay sii wadan doonaan nin ka soo jeeda beeshaasina la keeni doono. qodobadii ugu dambeeyay warar ka soo baxaya isqabsiga u dhaxeeya Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doona. qodobadaasi iyo kuwa kalena barnaamijka qaybta weyn ku faaqidi doona saaxiibayaal, balse aynu ku bilaawno. shirkii ugu horeeyay ay ku yeelanayaan dalka Turkiga xubno ku boobay kudlada nabad iyo nolol ee 5 sano ee la soo dhaafay xukuumaysa Soomaaliya. waxaa shir gudoon kulankaasi ka madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 bishii Sebtembar ee soo dhaaftay oo Jimcihii ku beegneed ayuu Farmaajo 4 bil kadib ka dhoofay magaalada Muqdisho tan iyo xukunka markii uu ku wareejiyay madaxweynaha hadda talada haya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana socdaalkiisii Turkiga uu daaran yahay isku imaatinka shirka nabad iyo nolol oo arrimo dhowra lagu faaqidayo. ajendaha ugu weyn ee shirka ayaa sida ay inoo sheegeen dad lagu kalsoon yahay oo shirka ka agdhow sidii loo sixi lahaa qaladaadkii dhacay doorashadii 15 May ee Xasan Sheekh Maxamuud ku soo baxay, guuldaro siyaasadeed ay kala kulmeen saaxiibada iyo sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. agaasimihii hore NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saldhig u ahayd markii horeba dalka Turkiga 5 bil la soo dhaafay ayaa waxa uu isagu yahay qabanqaabiyaha shirweynahan oo ay ka soo qayb galayaan saraakiil ciidan sidoo kale siyaasiyiin xildhibaano wasiiro iyo qurbo joog ku boobay falsafadii ay ku dhisnayd nabad iyo nolol. xildhibaano ka baxay Muqdisho ayaa ku biirayay shirkaasi waxaana dadka laga xusi karo ka mid ah Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya, labadii ra'iisul wasaare isku bedelay ee Khayre iyo sidoo kale Rooblaba isagu ah ra'iisul wasaare ku-xigeen. shirka Turkiga ay ku leeyihiin nabad iyo nolol ayaa doorka ugu weyn ee qalasixidooda ka soko waxa xoog iyo xeelad intuba ay isugu geyn doonaan helitaanka dhiig cusub oo salaan ee kaga dhigan karaan dib u soo laabashadooda xukunka Soomaaliya. doorashada la filayo in ay dhacdo 2000 iyo sidoo kale 26 ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in shirka Turkiga ee lagu soo hadal qaadi doono sidii ay door uga yeelan lahaayeen inuusan soo laabanin Saciid Cabdullaahi Dani doorashada la filayo ee 2024 Puntland ka dhacaysa, si taasi bedelkeeda ay shakhsi iyagu ay wataan looga dhigo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland. sidoo kalena sida xogaha hoose aynu ku helino ay sheegayaan Axmed Ciise Cawad oo soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu dadaalayaa in nabad iyo nolol sidoo kale isagu ay wataan uuna noqdo madaxweynaha xiga ee Saciid Cabdullaahi Dani ka bedeli doona madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. sidoo kale Axmed Ciise Cawad waxa uu saameyn ku dhaxleeyahay siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasadda Puntland isagoo saaxiibo dhow la madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale agaasimihii awoodda badnaa ee NISA soo maray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo labaduba saameyn weyn ku yeelan doona sidii ay u soo dhisi lahaayeen saaxiibkoodii siyaasadda wasiir hore ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ay doonayaan in ay u diyaariyaan jagada ugu sareysa ee maamulka Puntland ee ah madaxweynaha dowlad goboleedkaasi. xilli ay ku bahoobayaan dalka Turkiga ee kooxdii Aranjan oo ay isku dhaceen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kalena uu xilki ka qaaday wasiirkii ugu saameynta badnaa ugu awoodda badnaa maamulka Puntland ee wasiirkii maaliyadda Xasan Shire Abgaal iyo sidoo kale hogaamiyaha kooxda Aranjan Maxamuud Shido oo isagu dhankan markaan heshiis la galaya
agaasimaha nisa oo ah milkiilaha nabad iyo nolol sidoo kalena qorsheynaya in ay ku bahoobaan sidii xilka looga tuuri lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. xogaha kale oo aynu helayno waxay tibaaxayaan in kooxda nabad iyo nolol ay qorsheynayaan in ay bilaabaan mucaarado ay ku sameynayaan madaxweynaha hadda talada haya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyagoo markii horeba mucaaradoodu ay ku ekeed social media balse markaa waxay doonayaan in ay magaalada Muqdisho u soo ruqaansadaan si ay markaasi u abaabulaan mucaarad iyo sidoo kalena ay dhaliilaan dowladda hadda talada haysa uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. markaana haddii aynu eegno xilkii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ayaa waxa hadda isku haya agaasimaha hay'adda nisa Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo labadooduba ay mid walba midka kale uu keensaday taliyihii loo magacaabi lahaa booliska gobolka Banaadir iyadoo Mahad Maxamed Salaad uu ku andacoonayo in taliyihii booska ka geeriyooday booskaasi lagu bedeli doono qof ka soo jeeda isla qaraabadii uu ka geeriyooday waliba beesha uu ka soo jeedo Allah u naxariistay taliye Farxaan Qaroole. Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa sidoo kalena garab u ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Oduba oo sida la rumaysan yahay saaxiibo dhow la madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena isbahaysigu waa uu badan yahay oo sidoo kale damul jiid oo idil waxay doonayaan in booska taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir loo soo magacaabo nin hadda nisa ka haya galmudug oo isagu ku hayba sida la sheegay taliyihii booskaasi ka geeriyooday Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo sidoo kalena iyagu ay ku bedeli doonaan booskaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in arintani ay ula tageen ra'iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale Mahad Maxamed Salaad oo ayagu labadoodu isku haya cidda loo magacaabaya taliyaha booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu labadoodu u sheegay in ninka loo magacaabayo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir dabcan ay isku soo fahmaan xilligaana la doonayo in dabcan nidaamka hadda jira ee xukuumadda iyo sidoo kale hay'adaha amniga sidoo kalena ay iskhilaafin waxyaabaha la isku hayana si hoose loo xalin doono. wararka kale aynu helayno waxay sheegayaan in taliyaha nisa ee galmudug loo soo wado taliyaha booliska ee gobolka Banaadir wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalmihii la soo dhaafaba xiriirka uu kala dhaxaynayo taliyaha nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad oo aad u xumaa sidoo kalena kooxdu damul jadiidna ay qorsheynayeen in ay awoodda dhanba kala wareegaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isagu dabcan nidaamkii hore u jiray aad u dhaliilsanaa sidoo kalena kooxda damul jadiidna ay markii horeba doonayeen in uu Xamse ahaado maqaar saar sidoo kalena ay ku maamulaan halka uu ku sugan yahay. arintani waxa isku bahaysanaya wasiirka hadda talada haya arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Oduba taliyaha hadda nisa haya sidoo kale Mahad Maxamed Salaad ayaa arintani waxay cadaadis weyn ku saarayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si uu magacaabo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir nin ka soo jeeda haybtii uu ka geeriyooday taliyihii hore ee qaybta guud Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole. wararkii ugu dambeeyay ee aad kala socotay qubnaha TV-na xilligan waan eegintaa nabadii.